ugu liidato oo rag ugu hooseyso soo dhawaada midda koobaad maxaan idin dhahay calooshiis la ciyaar muxuu yahay waa ninka calooshiis la ciyaarka ama u taqaaniin calooshiis u shaqaysta wuxuu cuno la ka maqan maahane wax kale kama maqno guriga iimaana wuxuu cuno raadina magaalada taga wuxuu cuno raadina meelo socda wuxuu cuno raadina maanta dhan waa calooshiis la ciyaar markaan ku dhaho gabaray wuxuu leeyahay reer iyo ilmo iyo caruur wuxuu yahay calooshiis u shaqayste dada ka dambeeyo ama reera ka dambeeyo ama naaga ka dambeeyso ama guriga ka dambeeyo ma isdhahayo waxa laga yaabaa inuu lacag shaqaysto lacagta uu shaqaystana calooshiisa uu ku dhameeyo inuu waxa laga yaabaa ama shaxaad ama sheeko kale u baxay shilinka uu helay meesha gurigiisa ilmihiisa waalidkiisa walaalihiisa kula soo laaba lahay ayuu wuxuu kula naqanayaa calooshiisa wuu cunayaa 24 saac shilinka uu helo waa calooshiisa meel aan calooshiisa ahayn uma shaqeeyo kaas waxa la yiraahdaa calooshiis la ciyaar ama calooshiis u shaqayste ayaa la yiraahdaa calooshiisa ma ahan wax kale ma yaqaanabo sababtay tahay 24 saac kunki shilin oo helo calooshiisa uu la aadaya ismale ilma ka dambeeyo tala ka dambeeyo qaraaba ka dambeeyo walaala ka dambeeyo hooya ka dambeeyo naaga ka dambeeyo saaxiiba ka dambeeyo asxaaba ka dambeeyo mustaqbal iyo future dambe ayaad leedahay isma dhahay wax walba wuxuu ku koobaya calooshiis ama lacag ka shaqaysta ama shaxaad ku noolaha ahaad kaas waxa la dhahay calooshiis la ciyaar mid ka labaad waa ciilka ma baxa markaan ku dhaho muxuu yahay ciilka ma baxa waxa waay ninka guryanka badan leh oo yuuska badan leh guryan iyo yuus markaan maqasho wax kale ha u qaadan waxa waay markii ay shaqada aado oo meel tago mid ka labaad waxa waay ma shaqayste mid labaad waa ciilka ma baxe markaad maqasho ciilka ma baxe muxuu yahay waa ninaana shaqaysan oo na shaqo aadin oo gacantiisa inuu ku ciil baxa aan rabin 24 saac wuxuu yuusayaa meelaha wuxuu leeyahay ilmihii ay iga baahan waxiblaan u baahanahay qaaraankii alla igu heesta reerkii asaan cunuga jiran kana saalaya kana leeyahay maanta dhan yuus iyo qaylo iyo wuxuu wadaaya saanayta war markuu yuusayo oo qaylinayo waa 20 jir ma uu shaqo tago oo shaqaysto oo ciilkiisa gacmihiisa ku ciil baxo 24 saac waa siga yuus iyo yuudaan ku jure maxaa ka wadiin shaqaysta oo gacantiina ku ciil baxa oo isdhaha wax adinka gacantiina ku tacbado ku ciil baxo niyow yuuska iska dhaaf iyo guryanka iyo waxyaabaha aad wado sababtay tahay gacan islaameed kama ciil bixaysid kuma ciil bixi doontid waxa la rabaa inaad adiga gacantaada ku ciil baxdo Soomaalidu waxay tiraahdaa ma tabcada burweyne ma fahanteen haddaan ku dhaho ma tabcada burweyne waa ninka aan shaqaysanin heer xamarkana waxay u yaqaanaan buufle markaan ku dhahayo waa nin barkintiisa ay u dheertahay aan shaqaysanayn oon shaqo aadaynin oo waxa uu qabsado iyo waxa uu sameystay aanan jirin 24 saac ilmihiisa iyo gurigiisa iyo reerkiisa in loo maamulo oo mustaqafi laga dhiga rabo war manaag baa muxuu iskaga jiifaa oo shaqo la aadi laya muxuu la yuusaya war nin raga haatee dhagax soo jabi oo geedaha gooy oo gaariga riix oo shaqayso oo xamaali noqo ninka facaay aad aragtay oo daaraha iyo dabaqyada ay u dhisan yihiin waa nin soo shaqaystay ninka aad arkayso oo gaariga cad wato oo labisan oo magaalada maray waa nin soo shaqaystay waxa laga yaabaa cirbad iyo dun inuu shaqo ka soo bilaabo waxa laga yaabaa inuu geedo soo jiri jir inuu kaawo soo jabi jir inuu dhagax soo qaadi jir intaba ninkaas ayaa shaqaystay nin wuxuu shaqaystaa ku tasanino adiga waxaad shaqaysato ku tasho waxaad shaqaysato ayaa wax ku tarayaan gabdha waxaan idin kala dardaarmayaa labadaasna iska ilaalsha teeda kaleeto gabadhi hadda oo u joogtana waana iyo wax dhaaf ugu daro waxa tiraahdaa niyahow noo baxo noo shaqatay ninka calooshiis u shaqaysta calooshiis u cunanaana waxa tiraahdaa niyahow waxaad soo